dadka barakacayaasha ee degan duleedka bari ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa ku sugan xaalad nololeed oo aad u liidata. barakacayaashan oo u badan xoolo dhaqatadii ay caydhaysay abaartii soo martay geyga Soomaalidu degto sanadkeenu ka soo gudubnay. inta badan qoysaskan ayaan haysanin waxay u cunaan naftooda, waxaanay sababi kartaa baahida cuntada ee ka taagan deegaankaasi macaluul daran oo halis gelisa nolosha in ka badan 3,000 oo qoys oo barakacayaal ah. qaar ka mid ah dadkaasi waxa haleelay xanuunka dhimirka, halka kuwa kalena ay ku dhaceen xanuuno aan lagu maareyn karin Somaliland, mana awoodaan kharashka ay ku tagayaan goobaha caafimaadka, mana jirto cid ka damqatay dhibaatada haysata qoysaskaasi. qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo la hadlay TV-ga caalamiga Universal ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland, ganacsatada, hay'adaha samafalka iyo dadka muxsiniinta inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan isla markaana la badbaadiyo nolosha qoysaskaasi. saaka waxaanu soo booqatay saxaafadii waqtiga dheerna waa deganaayeen meesha, baahidooduna way fara badan tahay, hadday dawladda tahay iyo hadday hay'adaha tahayna waxaanu ka codsanaynaa dadka inay si degdeg ah ay wax ugu qabtaan. waxaananu aad ugu adkaynaynaa mas'uuliyiinta gobolka ee dawladdu inay xil dadkan iska saarto. halkan dadku wuxuu degan yahay ilaa 10 bilood meelaha irsiq ilaahay ayuunbuu hadee baxbay ku noolaa, laakiin wax yani ama dawladdu ay siisay ama hay'ado hadee baxmay ay bixiyeen oo ay siiyeen ma jirto. dadkuna wuxuu u badan yahay ama se uu yahay dadkii barakacay ee xooli ka baxeen, waa dad uu wada baahana dawladda iyo hay'adaha ka codsanaynaa dadka inay eegaan oo المسؤولنimo ku eegaan. ilaahay baa horta marka hore la bariyaa. dadkan gabiga jooga waa dad aad iyo aad u tabaalaysan, waa dad xooli ka dhamaadeen, waa dad aan hooy haysan, waa dad aan haysan, sida dhaxan baa u dheer. dadka qaar ayaa dhaxanta u baqti gaaray oo maxaan ku dhahay gariirta qaaday. shacabka yaga iyo dawladda Somaliland waxaan ku codsanaynaa inay dadka hoos u eegaan. أحمد عبد محمد إن اختار لي عاوية دبيديد بان كعطنا يا برشة الصومالية إذا أفكي كرنا السيد إسلام كوا لا يرها لك النقطة إن كان عفمات لا يدري دبيديد إن شاء الله تعالى. إلى دور سنة دلك إنت سان صومالينا ونمرنا الكي أنا وحنا كعنت كهيني أو كفارقي وإسلامه وحقوق سنة يكون أشري اللي بان بكير يعني ده هو غيره. dadkii xoolo ka bixeen baan wax hay'adu noo keenin biyaan haysan, wax kale ma haysano. haddii aan hay dadka barakacayaasha ee jooga garoonka dabadiisa, dadku waa dad badan, tiradiisa wax koobi kara ma jiraan. dadkaas dhibaatada ay ka cabanayaan waxa u badan dad barakacayaalo oo aan hooy haysan oo aan haysan wax ay cunaan. marka waxaanu ka codsanaynaa in si degdeg ah ama hay'ad ama dawladda Somaliland ay dadka wax uga soo qabato. waxaa jira kumanaan qoys oo ku sugan daafaha magaalada Burco kuwaasoo ay la soo daristay xaalad nolol xumo. Ali Daar Maxamed Boos, TV Universal, Burco.